hal u helaan oo guddigaas lagu sheegay guddiga koonfur galbeed xalinta koonfur galbeed lagu sheegay markaan liiska aragnana aysan ka muuqanin ama aysan u dhameen deegaanada koonfur galbeed oo ah saddexda gobol Baay iyo Bakool iyo Shabeellaha Hoose dadka ka soo jeedo ama qabiilada kala duwan ee ka soo jeeda koonfur galbeed aysan u dhameen sidaas darteed ayaan rabaa inaan shirkan jaraa'id u qabto oo ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba aan u cadeeyo in guddigaas la magacaabay uusan ahayn guddi mateli kara ama aan ku qanacsanahay ama muxuu ahaay annagu danaheena iyo danaha koonfur galbeedba aan uga seexanayno inuusan ahayn oo guddigaada madooba uu magacaabay ma ahan xubnaha guddiga shakhsiyaad badan oo aqaano oo aqoon leh oo karti leh ayaa guddiga ku jiro macnaheeduna ma ahan inaan shakhsi ahaan aan u diidanahay laakiin qabiil ahaan ama deegaan ahaan looma dhama guddigaas nasiib darro waxaan aad iyo aad uga xumahay in guddoomiye aadan madoobe oo muxuu ahaay guddoomiyaha baarlamaanka kana soo jeeda koonfur galbeed kuna baaqay in shir dib u heshiisiin loo qaban doono shacabka koonfur galbeed wafdi uu hogaamiyey ugu horreyn uu ku tegey Bakool ka bacdina uu ku sii tegey Baydhabo oo markii horena uu dhahayay shir koonfur galbeedaan rabaa dib u heshiisiin iyo Soomaalida koonfur galbeed inaan isu keeno taas ma dhicin wafdiga uu waday horta hal qabiil ahaayeen oo asaga ka soo jeedo Digli Mirflah sidoo kale Baydhabo markuu tegey waa ka daba tagnay annagoo raadinayna wanaag iyo walaalnimo annagoo raadinayna uga daba tagnay waa la fariisanay waxaan dhahnay su'aalan weydiin waxaan dhahnay guddoomiye dib u heshiisiintan waxa lagu magacaabay inay tahay koonfur galbeed yani dadka ka shaqeynaya ee wafdigaadana waa hal qabiil marka waxaan rabnaa inaan arrinta di koonfur galbeed ay taana inaan koonfur galbeed aan ka dhigno qabiilada koonfur galbeed oo dhan ay u dhan yihiin si maslaxadda koonfur galbeed looga taliyo guddoomiyuhu wuxuu noo sheegay in koonfur galbeed shirkaas iyo dib u heshiisiinta koonfur galbeed oo dhan in loo qabanayo waa ku farxnay waana soo dhaweynay waxaa la joogay markaan la hadlaynay madaxweynaha koonfur galbeed wuu la fadhiyey waxay labaduba noo sheegeen in shirkan dib u heshiisiinta uu yahay koonfur galbeed inuu yahay arrimaha koonfur galbeedna lagu xalinayo labaduba noo sheegeen hadda guddigii la soo magacaabay waxaa ka muuqda inuusan koonfur galbeed ahayn oo qoseeyo jufo gaar ah lagu heshiisiinayo meeshaas oo muxuu ahaay Digli Mirfle ama Mirfle colaad ama dagaal ayagu ka dhaxayso macna lagu heshiisiinayo uusan qoseynin koonfur galbeed aan lagu magacaabi karin guddi arrimaha koonfur galbeed inaan lagu magacaabi karin annaguna waxaan insha Allah taala aan diyaar u nahay inaan masiirkeena aan ka tashano shacabka koonfur galbeed aan hadaan nahay xaaladaha taagan inaan annagana guddi u saarano shir kale oo dib u heshiisiin aan qabsano dawladda ku meel gaarka dawladda Soomaaliyeena aan muxuu ahaay arrinkaas aan u sheegno madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xukuumadda dhammaan xildhibaanada koonfur galbeed ka soo jeedo dhan iyo shacabka koonfur galbeed inaan la socodsiino in annaga shir dib u heshiisiin aan qabsanayno aayaha koonfur galbeed uga tashanayno masiirkeena aan uga tashanayno horumarinta koonfur galbeed aan uga tashanayno arrimaha dagaalka iyo xureynta aan annagana uga tashanayno inaan qabsan doono isku imaan doono si gooni aan u tashan doono maadaama guddoomiyaha baarlamaanka uu go'aan qaatay oo go'aansaday inuu jufadiisa khilaaf ka dhaxeeyo asaga oo si gaar ah u xalisto annagana waxaan go'aansanay qabaa'ilada koonfur galbeed ka soo jeedo in arrimahooda si gaar ah ay u xalistaan annagana go'aansanay insha Allah taala hadii Ilaahay yiraahdo waana maasantiin sababta aad guddigan ma sheegtaa waa idin sheegay guddigan waa hal jufo dib u heshiisiin loo qabanayo oo guddoomiyaha uu magacaabay waana jufada guddoomiyaha uu ka soo jeedo madaxweyne Cabdicasiisna waa u sheegnay ninka la yiraahdo guddoomiyaha baarlamaanka waa u sheegnay guddi loo dhan yahay koonfur galbeed oo dhan matalay inay magacaabaan aan u sheegnay ballantiina waa nooga baxeen de haddii uu koonfur galbeed ma quseeyo shirkan shir oo hal jufo ay qabsanayso oo muxuu ahaay Baydhabo hadii ku qabsanayeen ayagay u taallaa
ولا شيء الشرك وشيسينا ولا شيء حتى ما يعني أديك سجار وديدا الشرك وصل علم الشرك بعد ما شفت حتى لا معك shir koonfur galbeed hadduu yahane dee qabiilada koonfur galbeed kuma dhamma haddii muxuu ahaay uu shir jufo ay qabsatay uu yahane dee way qabsan karaanoo arrimahooda ilaahay hala toosiyo annagana waxaan kala qaban karna waan kala qabanaynaa annaga shir annaga aan aqoonsannahay oon soo dhaweynin oon taageersannahay ma ahan marka shir annaga na quseeyo koonfur galbeed quseeyana ma ahan